Asalaamu calaykum. Soo dhawaada. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saaro. Haddii aad hore nala joogteene like saar, siina share garay si uu arday fara badan u gaaro. Waa tahee cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dialogue wada sheekaysi. How can we make our school clean? Iskuulkeena sidee baan nadiif u dhigi karnaa? Mar labaad aan ku soo celiyo. How can we make our school clean? Iskuulkeena sidee baan nadiif u dhigi karnaa? We can keep our school clean. Iskuulkeen nadiif waan ka dhigi karnaa if we put pressure haddii aan cadaadis saarno on the sanitation nadaafadda and take away aan na qaadno the garbage qashinka. Mar labaad aan ku soo celiyo. We can keep our school clean. Iskuulkeen nadiif waan ka dhigi karnaa if we put pressure haddii aan cadaadis saarno on the sanitation nadaafadda and take away aan na qaadno the garbage qashinka. How can we put pressure? Sidee baan cadaadis ku saari karnaa on the sanitation nadaafadda? Mar labaad aan ku soo celiyo. How can we put pressure? Sidee baan cadaadis ku saari karnaa on the sanitation nadaafadda? In many cases, marxalado badan, we make waxaan sameynaynaa community awareness wacyigelin bulshadeed about ku saabsan the sanitation nadaafadda. The garbage qashinka can cause wuxuu sababi karaa bacteria wasakh, and where there is bacteria meesha wasakh taalane there is disease cudur ayaa yaala. In many cases, marxalado badan, we make waxaan sameynaynaa community awareness wacyigelin bulshadeed about ku saabsan the sanitation nadaafadda. The garbage qashinka can cause wuxuu sababi karaa bacteria wasakh, and where there is bacteria meesha wasakh taalane there is disease cudur ayaa yaala. Where does the sanitation start? Nadaafaddu halkay ka bilaabataa? Mar labaad aan ku soo celiyo. Where does the sanitation start? Nadaafaddu halkay ka bilaabataa? It starts from the person. Waxay ka bilaabataa shakhsiga to make his clothes clean, inuu dharkiisa nadiif ka dhigo, and wash his body, una jirkiisa dhaqo, micna uu qabaysto. Mar labaad aan ku soo celiyo. It starts from the person. Waxay ka bilaabataa shakhsiga to make his clothes clean, inuu dharkiisa nadiif ka dhigo, and wash his body, una jirkiisa dhaqo, micna uu qabaysto.